munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha xarunta Dahabshiil Baydhabo isla markaasina cadad lacageed oo gaaraysay 300,000 oo dollar oo shirkadda ugu talagashay inay uga qayb qaadato gurmadka loo sameynayo dadkii laga soo barakiciyay gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood oo shirkadda ay ugu wareejinaysay guddigii gurmadka ee dhawaan uu magacaabay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka oo xubinka guddiga wasiirka wasaaradda ganacsiga gudoomiyaha gobolka ganacsato culmaaudiin madaxda shirkadda Dahabshiil iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in lacagta maanta ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka ay ugu talagaleen in deegaan looga sameeyo dadkii laga soo barakiciyay Laascaanood hadiya mar afraadba aad noogu qaali ah oo qalbiganaga meel kaga yaala shacabka koonfur galbeed Soomaaliya muxuu ahaa maamulkana waxaan leenahay insha Allah ta'ala maamulkii Dahabshiil Group ee hantidan soo dhibtay mulkiiliyaha halkiidan ku soo sadaqaystay walaaladii ee ka damqaday muxuu ahaa arintii ka dhacday runtii Laascaanood taasoo Soomaali meel kasta oo joogna inaan wada jeclaysanin waxaan ku dhawaaqaynaa anigoo ka mas'uul ah gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group Xaaji Maxamed Saciid Ducaale iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Saciid Maxamed Saciid ayaa waxaan maanta taariikhda 15 bisha 10aad 2022 ku dhawaaqaynaa lacag 300,000 oo dollar ah oo shirkadda Dahabshiil Group ay ugu deeqday walaalihii laga soo masaafuriyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool runtii Dahabshiil Group ma aha markii ugu horeysay ay isgarab istaagto dadka ku nool koonfur galbeed marar badan iyo mid soo socotaba waxay diyaar u tahay inay mar walba wixii dhaca ay kaalinteeda ka qaadato culmaaudiin ganacsato iyo mas'uuliyiin ka socday dawladda koonfur galbeed oo goobta ka hadlay ayaa si isku mid ah ugu mahadceliyay shirkadda Dahabshiil sida ay uga qayb qaadatay gurmadka loo sameynayo walaalaha laga soo barakiciyay Laascaanood wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Cusmaan Jiidow oo xubinka guddiga gurmadka oo si toos ah ula wareegay jeeg ay ku qoran tahay 300,000 oo dollar uu kala wareegay shirkadda Dahabshiil Group ayaa sheegay in lacagtan sidii looga talagalay ay u gaarsiin doonaan dadka u baahan ee looga talagalay waxaan rabaa sadaqadan cidii bixisay ugu horeeyo Xaaji Maxamed Saciid gudoomiyaha ku-xigeenka Saciid Maxamed Ducaale ee tiimka fikirkaas iyo taladaas ku lahaa in maanta dhaqaalahan la leeyahay oo Dahabshiil ka shaqeynaayo ugu horeeyaan Sheekh Ibraahim oo maanta jooga magaaladan oo dadka daruufadooda arkeen oo arkay laga yaabo oo qeeldaan oo sameeyay oo maanta anagana lacagtan lagu wareejinayo dhammaantood waxaan leeyahay waa maasantihiin mas'uuliyiinta oo jimcaha ay ka soo qayb galeen eegan waqtigooda u horeen aad u maasiin cilmi awdiinkii oo saaks waxnimada inta soo fadhiisteen eegan juhdigan oo dhaqaalaha oo maanta ay ka soo qayb galeen aad u maasiin waxaan rabaa marka in reer koonfur galbeed ay isku tashadaan hay'adaha kambaniyada waxaan rabnaa inay ku daysadaan Dahabshiil Siraaj Sheikh warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.